السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaada dhammaan akhyaarta ku xiran channelkeena ee Expert Ocean Somali. Insha Allah waxaan ka hadlaynaa Winexbet iyo update cusub iyo shax toto ah oo aan inoo dhigi doono si live ah. Koodkana xaggan ugula socon doono haddii la idmo. Koodkana aan idin soo dhigi doono groupka Telegramka. Cidii aan groupka Telegramka ku jirno insha Allah waxaan soo dhigi doonaa linkiga descriptionka Telegramka. fadlan haddaad channelka cusub tahay ha ilaawin inaad subscribe, like and share taawatid. Haddii aad hore nala joogtidna fadlan inaad like-ta iyo share-ta aad channelkeena aad ku taageerto ayaan kaa rajeynayaa haddii la idmo. Aniguna insha Allah waxaan idin ballan qaadayaa inaan mar walba update idinla wadaago iyo wax kasta oo ku cusub Winexbet. Okay, waxaan arkay dhalinyaro badan oo iga codsatay Winexbet maartay inaan u sameeyo Winexbet exchange oo maartay aan in muddo kaga dhawaaqiyay groupka Telegramka ah. Alxamdulillah rabbil caalamiin maanta ayaa sameeyay Winexbet exchange. weliba ballanqaadkii maalinimada aan kaga leexanayo oo ahaa inaan sameeyo weekly gift 3 qof inaan siiyo abaalmarin qaali ah oo maartay ay ku qanci doonaan haddii Ilaahay idmo 3 qof oo ugu sarfka badan markaas. insha Allah haddii aan barnaamijkeena u sii guda galno afar yar leehada insha Allah haddii aan barnaamijkeena u sii guda galno waxaanu marka hore ku horreyn doonaa toto kadibna waxaan idiin dhigi doonaa lambarka Winexbet exchange-geena description-ka si aad lambarka lacagta ugu soo dirstaan isla markiibana aad u heshid akoonkaaga lacagta aad soo dirstay inaad ku aragtid akoonkaaga dhex taala lacagta aad markaa doonaysid inaad la baxdidna isla markiiba aad kugu soo dhici doonto koontada kaarkaaga lacagtaadii oon shilin ka maqnayn daqiiqado koobanna kugu soo gaari doonto haddii la idmo. Okay, waxaanu tegi doonaa meesha ay ku qoran tahay address. Halka ay ku qoran tahay address ayaynu ku dhufan doonaa. Kadib waxaynu ka tegi doonaa toto. Markii aynu toto tagno already waxaynu oran doonaa meesha ay ku qoran tahay football. Halka ay ku qoran tahay football, toto football ayaynu ku dhufan doonaa. Markii ay toto football tan tahay shaxdan waxaan u maleynayaa may waa hockey tani toto football waa tan shaxdan toto football waxaan u maleynayaa inaan iyada maartay ay tahay shaxdan shax aad u fiican easy-na ah in laga shaqeeyo ay easy tahay. Okay, haddii aynu ku horeyno Ligue France markii aynu eegno labadan naadi Nice ayaa waxay tahay naadi adag oo maartay aan marnaba laga badin karin oo bir ah. waxaan oran doonaa Nice ayaa badinaysa. ugu weyn waa $13,660 haddii aad shaxdan badisid. mid kale waan kugu bishaareynayaa oo shaxdan haddii aad 3 meelood oo 2 meel aad saxdid waxaa lagu soo celinayaa lacag aad ku qanci doonto oo maartay aadan marnaba aadan noqonayn qof maartay hadduu hal naadi khaldo khasaaraya. laakiin haddii aad 14 naadi ee meesha ku jira 10 ka mid ah ama 9 ka mid ah aad saxdid waxaa lagu soo celinayaa lacag 0.7 ayaad dhiganaysaa. shaxdan 0.7 ayaa u yar 0.7 markaad dhigatid 9 naadi oo ka mid ah ama 10 naadi ka mid ah aad dhigatid waxaa lagu soo celinayaa lacag. Okay, hadda waxaynu doornay Nice ayaa badinaysa. ciyaartan Lille iyo nimankana waa laba naadi iyo labadoodu adag ismana dhaafayaan ayaan oranaynaa waxay gelayaan Brecho. halka ay ku qoran tahay plus ayaad ku dhufanaysaa. labada naadi oo kala iyagu waxaan oranaynaa waa isma dhaafayaan waxaan oranaynaa waa Brecho. ciyaartan oo kala oo maartay Chelsea oo Premier League ah waxaan oranaynaa oo maartay Chelsea iyo Manchester City maadaama ay Chelsea gurigooda joogto Brian ay Chelsea kacsan tahay waxaan oranaynaa Chelsea ayaa badinaysa. ciyaartan Leeds United iyo West Ham maadaama ay West Ham tahay naadi aad u gacan fudud oo maartay markiiba naadiyaasha dhigooda ah liqa waxaan oranaynaa West Ham ayaa badinaysa. Okay, Newcastle iyo Watford markii aynu soo fiirino waxaan oran karinaa Watford ayaa badinaysa. Okay, Southampton iyo Wolverhampton markii aynu soo eegno waxaan oran karinaa Southampton ayaa badinaysa. waayo Southampton waa naadi adag gurigeedana way joogtaa. Tottenham Hotspur iyo Arsenal waxaan oran karinaa baryahan Arsenal way ka jiiftay oo Arsenal waa laga badinaya. Okay, markii aynu Hoffenheim iyo Wolfsburg markii nimaadno waxaan oran karinaa labada naadi waxba isma dhaabaan oo way isbareejeynayaan.
okay markaynu Serie A Talyaaniga nimaadno Bologna iyo Empoli waxaynu oran karinaa waxaa badinaysa naadiga la yiraahdo Bologna 1909 oo ah naadi adag liigan meel fiican kaga jirta. Okay Lazio iyo Roma haddii nimaadno waxaynu ognahay Roma inay baryaha kan wixii ka hor yimaadaba liqaysay waxaynu oranaynaa waxaa badinaysa Roma. Okay haddii ay nimaadno Spain La Liga Valencia Athletic Bilbao waxaynu oran karinaa labada naadi maadaama ay yihiin laba naadi isku awooda kulanka ka horeynay Athletic Bilbao badisay iyadoo gurigeeda joogta waxaynu oran karinaa kulankan way isbaraajeynayaan. Mallorca iyo Osasuna waxaynu oran karinaa Osasuna waa naadi liiga meel fiican kaga jira kaalinta afraad mise kaalinta shanaad meelahaas kaga jiraan waxaynu oranaynaa Osasuna ayaa badinaysa. Rostov iyo Akhmat waxaynu oran karinaa waxaa badinaya naadiga Akhmat maadaama uu naadigaas kaga jiro liiga meel fiican liiga Russia. Okay markii aynu sidoo soo dhigano waa 14 naadi 14ka naadiba waxaad u dhiganaysaa waa one chance. Okay markii aynu sidoo u dhigano waxaynu oran doonaa halka ay ku qoran tahay PlaySbet markaas saan ugu dhufatid waxa ku soo baxaysa halka ay ku qoran tahay PlaySbet markaad ku dhufatid lacagta la dhigan karo waxa u yar 0.7. Okay waxaan dhigan doonaa 0.7 bet ayaan oran doonaa markii aan betnaano. Okay markii aynu soo buuxinay waxaynu ka soo bixi doonaa tooteena waxaynu tagi doonaa halka ay ku qoran tahay bet history ayaad ku dhufan doontaa. Markaad bet history ku dhufatid halkan waa aragtaa inay bannaan tahay waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay bet history faladha yar ee aan idinku hayo baasha ayaad ku dhufan doontaa kadib waxaad ku dhufan doontaa total history. Markii aad ku dhufato total history tootaha waxaa kugu soo baxaya sida tan inaga tootaha hadda aynu galnay waa kan kadib isaga ayaa soo furaysaa waxaana arkaysaa inuu yahay tootihii aynu hadda dhiganay oo isagii ayaa inoo furan. Fadlan waxaan rajeynayaa inaad fahantay. Please haddaad channelka ku cusub tahay subscribe like and share and comment wixii talo iyo tusaale waxaan rajeynayaa inaad inoogu soo taabici doontaan commentiga. Description ayaa soo gelin doonaa linkiga Telegramka waxaan idin soo qorin doonaa lambarka Onyx Tanjiga. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi tacaala wabarakaatuh.